sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please 2009 waxaa la joogay adeerkay waayo familkayga waxay aadeen dalxiis hadda waxay ahayd habeenkii labaad roob zaa'idana da'ayay anigana aad baan u baqanay runtii aniga waxaa jeclaa xilligu roobka zaa'idka da'ayo inaan daawado TV-ga haddaba filim aan caadi ahayn aan daawanayay abaar kadib hurdo ay qabatay TV-gina waa damiyey waa seexday marka hurdadana waxaa iga kiciyey dad hadlaayo aniga waxaa islahaa ummaddan saacadan maxay u soo jeedaa talow cabaar kadib waxaa maqlay shanqarti waxaan go'aansaday bal bannaanka inaa aado aan soo fiiriyo adeerkayna meeshuu jiifay asagaaba laga cabsanaa bahalka shaaribaha waaweyn oo indhaha waaweyn mana kicinin waa iska daayay waayo haddaan kiciyo qaylo igu bilaabi lahaa haddana shanqarti mar saddexaad ay igu soo laabatay aniga yaab waxaan dareemay ninka neeftiisa daaqadii aan soo xiray kadibna waa soo seexday ilaa amarkiis markaa kadib waxa maana arkin waan soo kacay waxaa islahaa waxa ma joogaan saacadan daaqadii markaa fiiriye waxaa arkay nin meesha taagan waa qayliye waxaan u soo orday dhinaca adeerkayna nin waalan buu ahaa garan asagoo qabo roob da'ayuu bannaanka xabad eber la aaday sagsaanuuna xirnaa aniga waa yaabay duqan maxaa ka qaldan subaxii dambe meeshii a imaanay dhibkii ka dhacay waxaa aragnay raad oo ninka lugihiisa ah markaasaa waxaan idhi marka dambeu ninkan meeshan yimaado waan dilaynaa maalintii dambe waa soo baxay xaafaddeenaa soo aaday wayba fiicnaadba habeenkaas inaan filin daawado oo saacaddan waxaan badbaadiyey guriga adeerkee waa la jabsan lahaa waana qiso xanuun badan oo dhacday ninkiina lama arkin ilaa maantadan asxaabay layga saar waana ku mahadsantiin daawashadeen